go'aanka dowladda Puntland garowe Maarso 2024 waxaa maanta ay taariikhdu tahay 13 bisha Maarso 2024 shir aan caadi ahayn ku yeeshay caasimadda garowe golaha xukuumadda dowladda Puntland. shirka waxaa looga arrinsaday tallaabada ay shalay oo ah 30 Maarso 2024 ay golayaasha dowladda federaalka ah ku buriyeen dastuurkii lagu ansixiyay magaalada Muqdisho 2012 taa beddelkeedana si sharciga baalmarsan loogu meel mariyay dastuur cusub oo laga leeyahay dano gaar ah. tallaabadaas oo ay dowladda Puntland hore marar badan uga digtay in haddii lagu tillaabsado ay wax u dhimayso midnimada dowladiska iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. dowladda Puntland waxay u aragtaa in go'aankii golayaasha federaalka ay shalay gaareen uu buriyay sharciyadii iyo heshiisyadii ilaalinaysay midnimada dalka ee ku dhisnayd hannaanka federaalka ah. dowladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka ku meel gaarka kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadin dastuurka ku meel gaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo. qodobka afraad ee dastuurka dowladda Puntland farqadiisa afraad xarfaha ba iyo ta kuwaas oo dhigaya dowladda Puntland waxaa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasimida ahaanshaha dowladda dhexe ee federaalka haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaab dhismeed dowladeed oo aan ka hooseyn nidaamka federaalka ah ayna daba heeraadaan deganaansho la'aanta iyo dagaalada ka aroosan qaybo kale ee Soomaaliya. qodobka saddexaad sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay garowe 17 Maarso 2020 qodobkiisa 10 kaas oo lagu go'aamiyay in dowladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummadeeda ee dastuurka federaalka iyo Puntland uu ogol yahay kuna matasho shacabkeeda. haddaba dowladda Puntland waxay gaartay go'aamadan dowladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay'adaha dowladda federaalka ah inta laga helayo hannaan dastuur dhammaystiran oo Soomaali heshiis ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay. sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland qodobka afraad farqadiisa saddexaad dowladda Puntland waxay yeelanaysaa awood dowlad dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hannaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiis ku tahay afti dadweynaha loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay. iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya cutubka qodobka koowaad farqada koowaad iyo labaad ee baadida aasaasiga ah oo u qoran sida tan waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar ah. sidaa daraaddeed Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu buriyay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyay. haddaba Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu lumiyay sharciyadii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo. qodobka afraad dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqaynna la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyay 1 Agoosto 2012. dowladda Puntland waxay si toos ah uga xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira danaheeda. go'aankan golaha xukuumaddu meel mariyay waxaa la horgeeyayaa golaha wakiilada ee dowladda Puntland. wabillahi tawfiiq.